miyaan ku warami wale may ii wad sheekada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada daawadayaal dhammaantiin iyo dhegeystayaal halkan waa ardaa podcast iyo barnaamijkeena iyo wada sheekada oo aan marba cid kusoo casuuno caawa waxaa noogu casuuman dad dadkii hore ka duwan hal abuuradii ka duwan abwaanadii ka duwan laakiin ah jilayaal waa maxamed nuur iyo shaahsaag oo aad ku aragteen filimka calaf ee dhowaan shaashadaha ka soo baxay soo dhawaada aan doonahay walaalo waan doonay aad baan mahadsantahay. shaahsaag maanta barnaamijkaada inoo furay waan soo dhaweynaya inkastuu maxamed bare galay halkaygii halmasikii daawanayay maxamed walaal soo dhawaada walaal waan doonay walaal aad baan mahadsantahay. sharaf way noo tahay inaad nagu soo boqotaan ardaa sidoo kale nagala soo qayb gashaan barnaamijkeenan iyo wada sheekada barnaamijkan horma maqasha waan arkay horta social media ka arkay maasha Allah arkay dad badan inaad ku soo codsanteen maasha Allah in meel fiican maraysa arkay maasha Allah samaha sharisaad nada hore u soo waday ka soo qasbay wanta soo jiida waayahay waxaanu iska wareysan doonaa si guud si gaarana filimka dhowaanahan soo baxay calaf ka warama calaf actually oo film marxaladda soomaalida ka tarjumaya ama bay-adan ku noolnahay so waa film qisadiisa iyo xamaasadiisaba wata dabcan walaalooda waxayna arkaan baylka gooyaane wayna arki doonaa markuu soo baxana insha allah waan suginaa maxamed calaf hadan kaaga sheekeeyo horta waxa weeyaan horta wax badan kama sheegi karo waayo dee xiisii magaranaysa iyo hadda dadkii ma daawan karaa magaranaysa laakiin haddaan dusha kaama maro calaf waa filin adigu jacayla oo laba qof oo adigu noloshu dee laba standard kala taagan jaamacad isku baranaya marka caqabadii dhex mari lahaa labadooda iyo ehelkooda iyo caqabadii ay wada mari lahaayeen ayuunbaad ka dhex arki doontaan insha allah waay aan kugu soo noqday maxamed oowe safarkaagii jilaannimo ama inaad wax matashid bal noo soo erqob horta ilaa yaraanteydii waan jeclaa inaan ka qayb galo magaraysa films iyo adu haddii yani ku saabsan anything ku saabsan film industryga aduu ilaa yaraanteydii waxaan joogay horta markii hore sacuudigan joogo waxaan masraxiyadaha iyo stageka iyo waxaasan ka qayb geli jiray iskuolkii marka yaraa adigu halkaan way ku adagtay magaras marka dibadaha joogtid marka mar hadad aanad ahayn dee qof wadankii u dhashay haddaanad ahayn way ku adagtay inaad ka qayb qaadatid waayo dee priority-ga waxaa le ninka dalka u dhashay markaan halkan imi baan sidii bilow waxaan ka bilaabay adigu 2016kii baan sidii film doob anigoon wax khibrada ahayn wax background ahayn ayaan sidii doob wiiga xumaaday haddana 2017kii baan research yar sameeyey haddana waxaan isku dayey haddana iga xumaaday kii labaad markii iga xumaaday ayaan adigu sidiniyo adigay mala wax kaa khalday isku noqo dib iskugu noqo marka waan baxay waxaa sidii bal cilmigaaga adigu bal yani marka soo adkaysid unba dee wax qabsan kartaa so waan baxay jaamacad baan tegey drama ah marka dadku ila yaabi jiray maxaa dhigataaba lagu odhan jiro waxaan ku dhahay drama so dramaduna maxay ahayd marka alxamdulilah 3 sano igu qaadatay oo soo dhameeyey oo soo noqday marka saa soo noqday alxamdulilah musalsal baan sameynay oo meel kasta laga daawaday alxamdulilah successful buu noqday dee calafna waa kan ka labaad alxamdulilah sharisaday adigu filin la matalayo sidee wada diyaar garowdaa yani marka imika lagu dhaho maanta ama directorka ama lagu dhaho biri waxbaa la duubaya like seebad ugu soo diyaar garowdaa actually normal yani waxaan focus gareeyo si gaara ma focus gareeya ma jiraan just only inanka directorka ayay soo invite gareeya ii sheega dareeska maanta loo baahan yahay hadduu darees guriga yahay hadduu darees labisa yahay hadduu mid jaamacadeed yahay marka siinka aan duubay unbay ku xidhatay waqti xaadirka so si normal aan soo diyaar gareeyo yani waqti badan iyo flalak iyo xasmi keliya badana marka lagu dhiibo dialogue ama iyada ka waran mid soo xifdidaa miyaad wallahi labadaba maxaad ka qosashay shahradada waxay ku fiicanta horta waa dadka maasha allah maskaxda furfuran la garanaysaa inta badan waa iyadu sida kale waa lazy runta sheegaya laakiin on set waa dadka ugu maasha allah firfircoon waayo waa dadka aad magaranaysa markay setka taagan tahay wixii loo dhiibo markiiba maskaxda ku qabanaysa anigu gurigiita tago dialogue ma qaybo at that time ba ku yidhahda oh maanta maxaa jiray waxaa la qabanaya so kaslamay dialogue ma naqri muhiima kay sheega because
waxaan jecelahay intaan dadka laba kala Ee, dadka qaarina wax aqriskay ku wanaagsan yihiin dadka qaarina xifdigay ku wanaagsan yihiin so aniga xitaa heerkayga jaamacadnimo aqriska kuma wanaagsanayn kulligeyba xifdiga fiican xifdigan ku fiicna klaaska maalinka haddaan ka maqana waxay ka dhigantay wax badan inay dhaafeen soo markaan u imaadaan weydiiyaan ku dhahdaa oh maanta kelmadaha la odhanaya waxa la odhanaya ii sheeg iyo brats anigii isaga wada sameynaynay dan waan haynayba okay laakiin way jiraan dee filimaan hore iyo madadaalooyin yaryar oo kooban oo aad samaysay actually ha way jiraan laakiin ma odhan karo is film just wuxuu iska hayn wax entertainment oo like imika aniga barteeda tiktok ama instagram ma soo gelin jirin wax movia laakiin waxaa jira familkayga ku badan xagga social mediaha so yeah so marka iyaga yidhahda oh maanta haba waxaasaan u baahannahay so kale okay let's go so marka iyagaan la sameeyaa laakiin wax aniga oo ii gaara oo sameynaya ma jiraan haddaan usoo noqdo filimkeena arab waxaa la oran karaa intii dee dhulkeena waa filimkii horreeyey si heer caalami ah ama dee si standard loo duubay intaad filimka duubaysa horta waqtigu ahaa sidaan ka warhayo yani challenge badan qosol badan farxad badan xasuuso badan waan dibida ka weydiin doono laakiin haddii maxamedow tusaale ahaan wixii kugu qosolka badnaa intii filimkala duurayay ka duuba keli waday wuxuu ahaa I think so waxaa jiray siin mala aan maqaaxi wax ku duubaynay oo mulkili baan la soo baxay annaga wax duubayna so wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi waxba la duubayaa ayar yani codkaaga yaan la maqlin marka lagu yidhi ayar yani codkaaga waxaagan la maqlin ayuu wax sameeyey marka annaguna waa arkaynay kabiisiitu gacanta ku qaatay marka arkay dee waas qaban kari waaye ninkii weynaaye meesha haystay oo saa u soconaya taas ugu qosol ku badnay laakiin baa la odhan karin dee dadkeenu weli aada u fahansana filimaanta iyo waxaan tuurista iminka xitaa hadday meherad ku siiyaan caqabadaha dhalinyarada haysta dee qolaa ku siinaysa meherad waxay ku odhanayaan ku duubo 5 jeer baa lagu soo noqonaya waa ma dhamaysa maxaa idin hadhay dad baana sugaya ma garanaysaa laakiin caqabadaha idin soo wajahay kale maxaa ka mid ah wallahi actually qabada noocaasa maanan aragan si adiga marka lagu yeero badi ma jirti karsan mayad anaa kuu sheegaya to be honest caqabadihii igu weynaa waxay ahayd early morning marka lagu dhaha soo kac so sometimes oo seexa jiray dar ilaahay baa soo kaca I was like gaadhigayga tagay idime waan tagnay meesha kaalo lagu odhan jiray soo xilligii waan degdeg ku diyaar garow degdeg gaadhi ku qaado kadib tag so iigina way soo mari jireen taas atink laakiin waxa wado kale maysan jirin marka waxyaabaha aan ku arkay dadkeenu aan aad u fahansaneen filmaanta waxyaabahaas ka mid ah imika tusaalehaan imika caqabadaha ugu weyn kala maxamed wax duubi sidoo kale maxaa ka mid soo gaana horta marka imika halkan waddankan joogno caqabado badan buu leeyahay magaranaysaa positive na leeyahay negative na leeyahay hadan positive ku bilaabo horta imika sidaad sheegtay imika meherada oo kale magaranaysaa waa imika adduunyada kale caalamka kale magaranaysaa hadda istareen meel ku duub lacag baa lagaa qaadaya wadada waxaa lagu oranaya wadada haddaad xidhanaysid lacag baa lagaa qaadaya alxamdulillah halkan kuma lihin annaga waxaas meherada kasta u geshid wax ku oranaya wax iga iibso waxa doonaysa ku duubo marka alxamdulillah taas way waa okay waxa caqabada laakiin imika marka aan dadkii magaranaysa mushahar aan siinin aad ku leedahay filin la duub imika shahrazad oo kale waa ku dad kale subaxii waa iska seexda marka annakina saarantay garanaysa in qofkii aad soo kicisid aad hawshiisii oo dhan qabatid dadkii oo dhan isku ballamsid gaadhigii locationkii wixii oo dhan marka dadkiina mushaharka ma qaataa ma garanaysa so way adagtay in qofkii aad ku khasabtay aad ku tiraad dunyo waqtigaas iyo waqtigaas diyaar ahow san wax u duubno caqabadaas jirto tan ka yar baxo barnaamijkan qaybtan mawduuca filimkii ku saabsanaa oo aanan doonayn aan ka hordhaco u daayo bulshada dee inay la soo aragto soo daawado kale kastaan in yar idinka horreeyey dadkan yar ka horreeyey daawashadiisa haddaan usoo noqdo shahrasaad shahrasaday waxaad ii sheegtaa qofka horta naftiisa waxbuu ka jeceliya ama ka aaminsan yahay ama magaranaysaa waxa ugu weynaa naftaada ka jecesho waa maxay kalsoonida kalsooni badantay naftaada yeah because without kalsooni dee waxba ma dhaqaajin kartin ma ogtahay the first thing oo qofku u baahan yahay inuu helaa waa taas hadday noqoto inaad ganacsi sameyso
hadday noqoto inaad film sameyso hadday noqoto inaad public speaking aad barato whatever waxaas dhan waxay soo isgelayaan qofka inuu naftiisa kalsooni ku qabo so that's a thing wey maxamed adigu maxaad xiisaysaa ma waxaan filimka ahayn mise filimka anigii ka baxay okay waxyaabo kale naga hadhin waxyaabo kale okay waxyaabo kale xiiseeya wallaahi horta imika 90% nolosheedu film bay ku xidhantay magaranaysa yani cause nolosheedu luma dee doonayaan meel ka gaadho filmiska so 90% markaan aanan maxay ahaday aanan filmska ku jirin waxa laga yaaba kubadda oo kale aan xiiseeyaa daawashadeeda iyo ciyaarteedaba jimka oo kale intaas wax kale kuma jiraan nolosheeda basically waa boring aniga adiga nagu yidhi nolosheedu inta badan 90% waa filimaad like asxaabtaada iyo familygaaga intaan mihnadan ku jirin sidee bay ku arkaan ma bilowgii mise imika bilowgii horta dee ma jiraan cid ku aaminsan magaranaysa idean filmska iyo waxaan waayo wax lagu oranaya dee haddii aad iyo haddii doonaysa dee film waxaana qabatay meelaha kale tag maba aaminsana dee waddankeena in lagu qaban karayo film iyo lagu samayn karayo laakiin maanta dee markay arkeen dee in wax lasoo saaro oo la qabtay dee way asxaabta horta way taageereen imika right now way ku taageereen laakiin markii hore may jirin familyguna alxamdulillah horta familygayga waa family magaraysa yara furfuran oo way fahansan yahay wixii marka mar walba iyagaabay dhiirigelin jiray oo odhan jiray ku soco haddaad jeceshay waxaan dee kaga dhabe ha maqlin dadkan imka dad badan baa iman jiray odhan jiray dee it's impossible inaad halkan wax ku samaysid iyagana dee waa dhabarka keliya maanta haysan jiray odhan jiray you can do it waad qabansan kartaa wax kasta doonaysa waad qabsan kartaa haddii noqoto film iyo haddii wax kasta noqoto so alxamdulillah way igu taageersanaayeen shaasaday marka wax matalisid adigu shaygaad matalisid yani miyaad jishaa un mise waad dareentaa laakiin marka dad murugo matalisid murugadii miyaad dareentaayoo haddaad jacayl matalisid dhulka tusaalahaan maxamed filimka waad lamaanaad ka matalisid is jacayl wax filina ma u qaado dhabdhaba no kala saar shaqadii iyo horaa lagu saaxiibtinimada soomaalida hore usoo lagu fahmay soomay waxaas waxba may u jiraan laakiin way shaygaad jilaysid ma dareentaa wallahi ana sometimes yeah sometimes no kaasoo qoslaa oo maxamed ba more time isagoo jiliinkiisi macaan wada dad samaya kule igoo ka dhabaa yaad dareentay muxuu ahaa mar burgaabaad caadi u dareentay ha mar jacayl waad ka aragtay jacayl laakiin hey sidii wada caadi min murugaaba jirtay oo like waxaa jirtay maro filikana kasoo dhacmo wanaagsana laakiin maro marxalad murugaa yara jirtay so taas caadi oo muurkeeda u kale labaka daragdhaa way kaba dhamaatay iska kacwada waad yar murugatay yeah way laakiin adigu maxaa roolkiiba jeceshay inaad inta badan favoritkaaga ah inaad matashid like mar waxaa jira wiil hantiilaa waxaa jira qof yani nolosha ku leecday boos yani ma kaa nolosha ku leecday magaranaysa cause waxaa dareemaya inaan ku fiicanay scenska maarata emotionalka kaasaan ugu adag san u arko magaranaysa kaasoo ku challenge garanaya magaranaysa inaad wax samaysid waxaanad awoodin inaad samaysid marka mar walba challenge-kan jeclaano marka kaa maaragtay aan ka dhexgalay ninkani wuxuu ahaa ninkii isagoona isticmaalin wax dawa indhaha lagu shubanayo ama wax basana I was like iska buraarta kasariga damn waxaan ma ilina caadiya wallahi I'm like tawan kula arkay so caadi buu iskaga keenaya imka mobilkayga waxaa ku jira muuqaal aan film ay duwayeen bay ahayd markaana waan joogay goobta horta markaan runta ka sheekeeyo beriga habeenkaa u ooyey aad baan u mulwooday seriously garanaysaa oo xitaa inaan meeshii sii joogo aad bay igu adkaatay aad waxaan ku joogaya allayna kaftame ilma yaro kabla la soo dhacay marka ooyey somaha marka hor film bay duwayeen aan kaga sheekeeyo maxay ahayd iminka malaa 2 rabadaan ka hor dabeetana film bay duwayeen filimkii waan u yimi isagii nimanka asxaabna ay ahaayeen waan filimkii siduu socday marba in la duubayay action shot lagu celinayay marka anigu ma fahansanay scriptiga filimka wuxuu yahay laakiin siinka uma dhaxda ka soo dhaxay show qof baa adigu ka dhintay
inankii maxamed action un baa layidhi ma garanaysaa maradii markii la shiday isagoo barooranaya badan ooyi aad buu ooyi ma garanaysaa anigana maalmaha arrimo murugada baa haystay oo qof baa iga dhintay dabeetana like saa u ooyey jawigii markii upside down like egg qof baa wax loo sii mariyaa aad sii arkaysaa like me because aniga marka lay and ilintan chili yani indhuhu iska kacsan no way ay waxa jirtay dawo la isku marinayo isha kooyaro oo laleysa maalinta taalo soo ilaabana waxa important ahayd basan in la isticmaalo then the ilaahay helana qamaata dhan indhuhu ku olalaan I was like ما وين صقع حتى يحصل وين دالي ماني اللي انتو ودمان because feeling كنا more than أنا وقبضنا أو هنت صقعش كوا حمودة زي اللي يسود لي حبيبي محقوف له هي أين الفيديو horta ma garanaysaa marka sheekada la diyaariyo ama sheekada la qoro waxaan qaataa scriptka imika waxa jira dad yani maalinta ay wax duubayaan imaado meesha ma garanaysaa oo ku idhahda lagu idhahdo hebel baa tahay wixii iska qaato iska baxa ma garanaysaa maalintii uu duubayo imaado laakiin aan waxaan jeclay karakterka la siiyey maanta inaan dhex galo in isagii noqdo yani inta maxamed kan ilaawoba ma garanaysaa hebelkii noqdo sidiisa u dhaqmo sidiisa u socdo sidiisa u hadlo sidiisa u labisto marka waxa uu kalifay qofkan waxaad ka soo qaadaysaa inaad adigii tahay ma garanaysaa so hooyadaadii caadiga ilaahay horta inoo dayay hooyooyinkeena inay hooyadaayoo kale ku dhimatay qofka karakterkaasoo kale hooyadii baa dhimatay waxaad dareensan inay hooyadeedii caadiga dhimatay ma garanaysaa marka saa u dhex galo dee wax kale ma arkayo bini aadan kale ma arkayo yani marka lagu dhahdo action unbaan ku dhaqaaqaya ma garanaysaa so waxaas ayuu kalifaya way haddaba in yar waxaan doonaya inaan acting idin yar geliyo in yar baan filimka ka soo yarxadaya mar waxaa jirtay maxamed waad ku daadinaysa iyadoo ku daadinaya ha ما شفت مالك ما joogin ayagoo ku sheegay filmka daawada ha seriously okay imika waxaan bilaabaya inaan soo su'aalaha meesha ka soo guratay waxa kasta inta soo fadhiisto waxaan doonayaa haddii imika lacag isii inaan meel kasta kaga sheekeeyo garbarta okay marka soo dirsan noo sharaxaa wati waxa sameystay oo si kala loo sheegnaa ha anaga qarxay taas ka dhawaata mar waxa jirtay maxamedow ku daadinaysa laakiin marka يعني مش شخصيتي داعين تاع نفط على سوق كليسة waxay ahayd ka hor bay jirtay ma garanaysaa yani shakhsiyad waxa weeye aniga jeclaa ma garanaysaa iyadoo horta labadii waan jeclay laakiin yani for some reason bay iga hadhay ma garanaysaa so acting laga hadlaya acting so filmka gudihiisa marka waan idhaahdo mar walba filmka gudihiisa shaki baa wadi gelisa marka waxaa jirta shakhsiyadda gudaheeda waan isjeclaanaynaa marka iyada for some reason aan sheegi karin ayay igaga hadhaysaa marka waxaa jirta hadhow tale yani anigoon garanay sababtii ma garanaysa wixii sababta igaga hadhay ay hadhow soo noqonaysaa marka gooran bogsaday oo aan islay yani naftayda been isku sheegay ma garanaysa aan islay waad bogsatay oo waad ka maarantay oo ayay markaas soo noqonaysaa markaasaan ku daadinaya way taas waa chilin wax kasta waad samayn kartaa jacaylka sida caadiga aad maxaad kala miisantii horta jacaylka waa wax fiican haddii the right person yahay qofkii saxda ahaa dee aad wadaagaysaa jacaylkaas wuu fiican yahay laakiin maxamed ahaan right now anigu ma garanaysaa waxaa imika maalintii dhaweyd dhalinyar badan baa yimi garanaysaa igu yidhi filmaantii xasan doon ka soo qayb galno waxaan nasiixadii ugu horeysaan ku lahaa horta wax haddaad doonsid weyganaad martid film samaynta iyo waxa la jecel iyo waxa ka fogow cause wad khalkhalaysa ma garanaysaa cause inantii wax waqti bay kaaga baahan tahay shaqadaadi waqti boqolkiiba shaqadaadi way kaaga baahan tahay waqtigaaga so right now anigu may wallahi kuma jiro umana dhawi macal wallahi waan ka fogay aad baan uga fogay saashii ugu khalaftaamay Soomaali actually maxaad ka aaminsantahay ma jecalka wax fiican waa imika barnaamijka hablo badan baa dash laakiin sheekadii ma garanaysaa marka team 27 asal xajay waxa ku soo gali jiray I'm single soo stage wada mafahmay feeling si ku soo galay ha okay laakiin uu ma leeyahay waayo like imika dad badan baa ina daawanaya ma tafiri karo waxyaabo maganaas
yeah ummadda Ah, baa ku dhex jirta, ma garanaysaa? actually ninkaad waxba habiqin xukun uu yidhi iyo dareentay waa wax wanaagsan baad samaysay thank you way day habluhu way inamadu ay ka DM-kooda ka badan boqolkiiba waa iskuma dhawade No, 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 war no, moor no. may hablaha iyo nimada tulay waqtiga la taagay iskuma dhawade no way horta listen sheekada haddeen femalism soo galno way kasii ballaaranaysaa Soo ma galno- fahantay horta hadalkii yaa waa ogsoonay laakiin inamada laftarkoodaba same maaha whatever yani dadku sidii hore imka ma this time waxaad moodaa xagga ragga habluhu yani inay badan yihiin DM-ka iyo waxa inay inay ragga raggu usoo badan diraan yihiin. horta dee noloshu sida caadiga ilaahay baa abuuray biniaadamka oo dhan Actually. dadkuna isku wada baahan yihiin Mhm. laakiin I don't know reasonka ah ee yani Balance- haa balansiga haa keebaa balansa inkastaa noloshu balansa ma garatay Yeah. marka adigu teebada aaminsantay dee actually markii hore allihii weynana abuurtay ilaah subxaana watacaala raggii dumarba muu samey laakiinse in this generation marigii hore waxaa la odhan jiray gabdhaha kunbi kulmiyaana koobay ka raacan laakiin hadda waxaan aaminsanahay inay raggii bedelaan gabdhihii ee raggii kuna kulminayaan koona ka raacayaan that's the thing xaggan u socdaba xaggaas ah raggaa kun kulminaya kulminaya koona ka raacayaan marigii hore gabdhaha la odhan jiray kunbi kulminaysaa inaan iyo koobi ka raacaysaa laakiin way isbedeshay generationka isbedelay laakiin ya khiyaamo badan ma labadooda haa dabcan أنا waxaan aaminsanahay raga أنا ريزك أنا كوراعي أوكي إيجي تقدين هاد سيني فرين أصلني ما يندك أصلني وتأركز سام هبلها قارن أكوشرة سلكم وأركز رجع قارن أكوشرة لكن أنا waxaan aaminsanahay gabadhu wax kasta ay qabanayso inay qalbiyan iyo caatifada ay qabato ninkuna wax kasta uu qabanayana maskax ahaan buu qabtaa and like for example gabadhi danaheeda iyo farxadeeda iyo yani nolosheeda for not reason qof aanay dan ka lahayn kuma soo koobayso laakiin ninka wuxuu samayn karaa isagoona waxbaba dan kaale ma fahmaysaa soo markaa badda hay gelin oo goorma That's okay. goorka Yalla jawaabtay Hadda waxaan diiday maxamedow maxaad ka leedahay adugu walahi lama odhan karayo iyo hablaha badan ama inamada badan labaduba ana waxaa leeyahay waa labaduba way leeyihin labaduba way leeyihin cause inamaduna dee way horta waxay ku xidhantay personality qofkay ku xidhantay magaranaysa biniaadanka waxaa jira rag dee iyaguna saasoo kale oo jiid gareeyo dee sameeya habluhuna way jiraan laakiin labada reason caadifadan ka hadlan laakiin haye anigu waxaan caadifadan ka hadlan imika ma jiro caadifad ma laha ma jiro nin imika yani xagga honestly laga yaaba in habluhu xaggooda inay yar badan yihiin ma jiro nin odhanaya inantanaan jecelahay tanna lacag baan u raacay tanna safar horta yara sugan no way anu ma ogolaanayo taas because waxaa jira waxaad arkaysaa inan iyo inan imika wada socday dan iyadoo montisba kasoo wareegeen ninkii gabadha la guursanay macarkii kasoo may waa runtii waan kuleey labaduba way jiraan baan kuleey tanna wuxuu ka raadinaya walaalo 3 bil rag ula shukaansanaa run baan kuu sheegayaa tan wuxuu ka raadinayaa waxaa weeyaa relationship personal attack yes okay idinka faqfaqeeya like in arrimaha ka hawa laakiin run baan kuu sheegaya raggu 3 bay sameeyaan mid waxay sameeyaan mustaqbal bay ka raadiyaan mid waxay sameeyaan just only xaraabo sheeka ka raadiyaan midna baahidooda ay ku gutaan if you want to inanta laakiin xaggii dadkan oo dhan ay ula hadlayso qofkeeda inay ka dhex raadiso haddaa u inantii reason baa loo sameeyay no way because dee runba ku sheegay walaalo may that don't make sense wallahi that don't make sense wallahi no sense maaha inantii qiil baad u raadinaysaa may inanta waayo qofkeedii bay ka dhex raadinaysaa isagu muxuu qabanayaa okay waxaad arkaysaa like come on there wallahi I'm talking true because inantii waxay ka raadinaysaa qofkeedii dadkan ay la hadlayso maybe inay beenu sheegta tirada keligaa ma la sheekaystaa maybe laakiin taasna waa normal soo no it's not normal why markana gabadha aad la sheekaysanaysaba dee malaa'ig mayna keligaa laguma dhalin walaa way anigu oo dee markeeda horeba dad bay la sii hadlaysay adigii hortayadoodaaba ay ka jawaab ninka maad ku socdashida caawka maarid way kuma socday isaga rogi sheekada soo aha iminka jacayladiina sanadada dambe maxaa dhadhankii ka qaaday bay kula tahay iminka berigii hore sidii laysku jeclaan jiray layskugu soo rafaadi jiray like garanaysaa qofku markii lagu sheekeynay dadka qaar wada yaabaysaa waxaa ugu yaraad xasuusinaysaa waxaa qofte xaggan inkasta taas mentally qof isku qorqoraya wax laakiin waxaas waxay ka ahayd jacayl qofka u qabo
ma garanaysaa imika inaad wax isku qortid iska daayay in waa laga dhacayaa weymika haa ma garanaysaa markaa maxay kula tahay adiga oo your opinionkaaga in wixii maxaa dare ka qaaday yani dhadhanka dhadhankii xaladii waxay ila tahay anigu waqtigu isbedelay waayo at that time muusan jirin wax communication ah oo aaladahan jiray imika dadkan sida fudud ku wada hadlaya sida fudud ku kala xiisa dhacaya may jirin waqtigaa waxaa jirtay in dadku yani ifya naadir isku maqlaan ma isku arkaan ban islayano walow ana ka warhay laakiin ina opinionkayga so marka waxaan anigu u malaynayaa inay tahay dadkiiyo aragooda iyo ismaqalkooda isku badbaday waa run wallaahi waa run dadka imika waxay noqdeen inta badan xiisolayaal bay noqdeen waa la xiise yani wax laga yaaba halkii mar inuu dhowr qof inantuu jeclaa haddana qof kale social media ku arka haddana marka waa runteed oo dadkii hore may jirin social media iyo labadii dooneen is arkaan de way isku iman jireenun inta kale maqaynad waa la isku xiisaya laakiin iminka markay saa u kala tagaan facetime baa la iskala hadlayaa social media la iskala hadlaya waa la isla soo hadlaya marka I think xiisiyo dhan halkaas u ka baxay laba taa oo helaaba odhan jiray alxamdulilah tuyar bad meelahan jaarkiina aad aragta marka daqiiqda doonaysay soo marba la soo odhan jiray waa filaya so laakiin imika mid xagga marsa dalta kale xagga marsa saas weysiiya way haddii in yar xasuustii ugu noolno jacayladaa hore maxaad ka xasuustaadu wallahi mashukaansiyadaa caruurnimadii I don't have idea why I don't have idea because at that generation kama soo marin okay bastiik like xagga maad joogin bay micnaheedu tahay dabcan xaggana maan joogay waxaana dhihi karaa inay ma jeclaan ba yani halkaa iskaga soo koob xagga ma joogin adiguna waxaad sidoo kale maad joogin labadii waad maqneedeen aniguna sidoo kale maa joogin yaa joogay markayna daawanaya joogin waayo de waxa dad idinka tagtay waxaa idinka hadha haddaan usoo yar noqdo shaarisaad maxaad xiisaysaa yani ama maxaa ku xiise geliya waxaan dhihi karaa waxyaabaha yarar simbalka simbalista yani wax yaro fudud oo qofku agtiisa u malaynaya was like inuu yani simbal tahay oo aniga xiise geliya farxad geliya tusaale ahaan oo kale haddaa ku idhahdo waxyaabaha simbalka sidaado yaro faahfaahe sometimes waxaa jirtaa inaan trip u baxo kale sida aniga iyo asxaabtida hablo so somehow dadka qaar waxay xiiseeyaan inay tagaan meelo waaweyn hoteelo waaweyn laakiin waxaa raadiyaa cuntooyinka streetkan noloshiira simpleka like inaa meelaha unique aan arko kale ama for example haddana wadankeena joogno kale meelaha yare like jawigu iska degan yahay bilaa buuqa ah waxyaabahaasoo kalen xiiseeyaan maxamedow adigu haddii aanad jiraannimadan aanaad ku jiri lahayn yani maxaad kala jeclaan lahayd inaad samayn lahayd xagga businesska business waan isku dayi lahaa horta inkastaan dhinaca laga wado businesska laakiin aan isleeyahay hadha tole marka magaranaysa meel ka gaadhid film samaynta iyo waxaad aad meel ku gaaro oo filmaanta lagu sameeyo still haddana nolosheeda waa filmski shirkad company filmska oo magaranaysa hadha tole filmaanta soo saarto waxaan doonaya inaan halkan ka gaadhno yani heeran ka gaadhno la yidhahdo filmaanteeniba wadamada kale turjumteeno af soomaaligeeniba luqadooda u turjumteen so the goal is that insha allah waayey su-aashaa kasii raacayo maxay kula tahay caqabadahan imka dhallinyaradeenna hayste filimkii doonaya inay filmaan matalaan garanaysaa aan haddana awoodin ama wixiini maxaa yar maalayaniga ka dhigay horta waa run yani caalamkii haddii la eego caalamka dee xaggii marayaan iyo maanta xagga marayaan iskuma dhoweyn waayo de waxay iyagu marayeen toddobaatanadii baan anaku maanta marayna waxaan waxaa keenaya imika horta imika dee dadkii haddii la yidhahdo ganacsade haddii la yidhahdo kombaniyadii haddii la yidhahdo shirkadii ma aaminsano fikraddii filimka ma garanaysa maanta marka filimka tiraahid wax kuley war waxaa film iyo waxaad ka sheekeynaysa waa maxay marka kuwaas haddii maanta dee ayna aamin lahayn ay odhan lahaayeen niyo wendi barbar taagan dee welibana iyaga dee haddii la eego maanta haddii la eego yani haddii wax laga yaaba inay wax yarageliyaan oo wax badan uga soo noqdo iyaga so taa caqabadda ugu weyn waa taas dadkii aan la fahansin film samaynta iyo filmka wuxuu yahay dadku waxa laga yaaba in iska bilowga xiiseeyaan magaranaysa qof walba wuxuu jecel yahay inuu shaashada kasoo muuqdo inuu wax ka noqdo laakiin haddana tacabkii iyo effortkii iyo dadaalkii ma gelinayaan
marka haddii imika qofka baniaadan ka go-antahay oo kale uu isleeyahy gal wallahi horta hawl dheer buu u maraya laakiin akharka uu gaari karaa yani it's easy hadduu ku maskaxdiisa geliyo haddaan usoo noqdo caqabadahana number one eeg waddankeena horta waxyaaba badan waa dee u sahlantay imika waayo dee one baa marayna stage one baa marayna so imika the main point waxa weeyaan dadkan yani had dowladda noqoto hadday noqoto ganacsada hadday noqoto kombaniyada hadday noqoto shirkada inay sida imika ciyaaraha kale loo siiyo loo fangareeyo kale filmska imika maanta wax jira dalaal aan la garanayn filmska ka hor dee aanan anigu garanayn imika turkiga oo kale dee waxay kusoo baxeen filmaan oo lagu bartay dalkoodii oo dhulkoodii dhaqankoodii wixii oo dhan films baa lagu bartay so innakana saas oo kale insha allah dee maalin inay dee dadkan yani power kale waddanka jooga inay iyaguna saas oo kale dee halkaa nagala shaqeeyaan lala qabtaan inagoo og caqabaduhu inay saas u fara badan yihiin dee haddee maanta bilowno aan laga geyoonay adiga maxay kula tahay caqabadaha hablaha si shaksiya u haystaa maxay ka mid wallahi the first thing maskaxda kasoo dhalan ku sheegaa family family because iyadoo waxay jilitaan tahay baa waxaa loo qaadanaya inay true tahay iminka for example waxaa jirtay filinka televisionkiisa ama beersiinkiisa markii lasoo dhigayay pageka facebooka commentiga yareega waxaa jirta inan ku jira filinka oo aniga walaalkii ku matalaya oo waalid u ahay so in real life way waalid u tahay yeah in real life aan waalid habrar baan ahay filimkan wuxuu ugu jiraa walaalkeed ugu jira so and the reasonka saa loo sameeyna waxay ahayd inaanad wax fikrad khaldan ama wax diinteena ka baxsan aanay meesha soo gelin so mar aan hagaraynaya jirta ma ogta so dadkii commentigay soo gelayaan bla bla waa maxay sidan iyagoo fahansaneen ig warba kama hayaan ma oga qofkan waxaan isku nahay ma oga daway horta waxaan odhan karnaa more than dadkan saa uga hadlayaana inay daaha dabadiisa dadka falalka khaldan ku dhaqaaqa ilaahayna soo wada hadeeyo horta dhammaanteenba laakiinse halka shay ee ugu weyn ee inan carqabad ku noqon kara waa family la-aantoodna inana ma dhaqaaqi karto marka waxaad uga jeedaa raalleho inay familigeedu taageeraan mise inay kasoo horjeestaan baa inay taageeraan oo like wixii hadduu yahay wax saxsan oo la yidhaahdo okay lala analyse shekada u sheegto oo dhahaan okay go ahead taas way wanaagsanaan lahay laakiin ma jirto oo waayo inagu maxay heeday situationkan ku jirno iyo bii-adan ku noolnahay ayaabayna xanibaysa haddaynan dib ugu yaro noqono dadkii hore waxaa jirtay riwaayada la sameyn jiray masrax baa lasoo istaagi jiray intaasoo kuna qof baa daawan jiray at that time khalad ma yahayn hadda u fiirsaa dalka laakiin imika wax yar filin yar baad sameynaysaa ama waxbaad isku dayaysaa inaad banaanka keento like wax loo arkaya khalad laakiin inay meeshii inaantu like ay tegi karto somehow sida caali jirta oo kale jumeer oo kale it doesn't make sense ay u tahay laakiin haddii ay filin jeshan odhanaya dam say inanay filin u jiri kartaa maxay waxaas u dhacayaan kale lagu odhanaya so taas waa midda koowaad iyo bulshadayniyo indhaku garaadloo noqday waxay arkayaan u qaadanaya laakiin aana ogeyn waxaan maxaa ka dambeeya qofkan ay hagaraynayso ama qofkan ay maxay heday wax wada jilayaan maxay isku yihiin taas atay okay ma la odhan karin dadkiinu jiritaankii dhabdhab bay moodayaanba waxaan inuu film yahay ma kala garanayaan iyo horta ilaahaale way moodaanba oo tusaale ahaan oo kale musalsalkii fili kale daranayaan hindiga hadda eg maaha dad kaleya hindidii dadkii kale loranaya waxaase ku dhacay way ku dhacayaan ka gaar ka anna inay ku dhex jiraan oo kale so waxaan ma ogayn yahay just acting anaa ku sheeg iminka musalsal horaan soo matalay oo la daawaday jira oo dadku waxay moodayaan inaan character ka ahay qofka saa u dhaqmaynan ahay waxaa jirta maalin islaam baa soo garacday igu tiri hooyo ilaahay ha ku daayay marka waxay moodaysaa characterkaas waxaa nin miskiina magaranaysa oo qoraayo maxay aheeday dadka jecel dee in wax u qabto aan isagu naftirkiisa wax u qabsanin marka islaantaas ay ku leh hooyo allah ha ku barakay allah ha ku sharfo ilaahay ha ku ilaaliyo masaa kule hooyo maxaa dhacay say ku leeday soomaalid kama lahayn sakurkaas waa characterka maha real life aniga saas ma yihi marka iminka dad qof walaad la kalunta wax kumooday inaad saa tahay yani inaad qofkaa tahay horta waxaas waa wax jirta ma garanaysaa aniga qudhayda way gu dhacday beri xasuustaan
filim taxana ahaayo manifest loolan jiray Yeah. mana haystiyaa ha waxa dhacday gabadhii Nairobi loolan jiray Yeah. si anigu ma filin inay dhimanayso Yeah. marka xabadda lagu dhufan doono Yeah, actually. man dreamy man yani the big fan ban gabadha ahaa markii filimka matalaysay magaras waa qofka dadka isku wada ee big connection bay garas Actually, yeah. wala qurux badan ha waan ku fahansanay laakiin kii kale wuu balan qaaday inuu dili doono garanaysaa marka Maana isweydiin ana ninkan maxay markii u dili waayeen? no ha yes wallahi Ramadaan baan daawanayay waan xasuustaa xilqadii salaah Ramadaan bay soo baxday filim maan daawan 5 isho filimkii maan daawan ka hadhay marka Soomaalida waxaan waa caqabad dadka oo haysta ma garanaysaa ninka hadda meelaha ku atlaamo caayilaayin wax looga sii diyaariyo loogu talagalay inay yihiin marka caqabadaas kale adiga may ku qabsatay xagga family wallahi ilaahay cimri dheer iyo caafimaad siiye amiin mama guri dambeysna waa noohay actually ila hoosta ka gala kana ma waxaasan doonaya I was like maanta dhan waxayba qurxinaya ilaa ugu dambeyn iga tirahdo haye doodaad wax khaldan tamam because haddaan iyadoo igu kalsooneyn ama aanay iyadoo aanan kaga daba dhuunteen walaaladayda inta kana daban heerka ma soo gaarin waxna iimay hagaageen way hal su'aal baan dhex dhigaya adna mar baad ka jawaabaysaa imika haddii la odhan lahaa filim weyn oo taariikhda galay ama kuwa hore loo soo matalay xitaa kuwa caalamka filimkeebaa la odhan lahaa amaad odhan lahayd waan ka qayb geli lahaa ama waan actingkiisa waan qaadan lahaa iga hore maxamed iga Ana hore film baa jira la yidhahdo John Q haye oo anu dadkan aan ku daydaan islay qofkan ugu jecelay magaras actingkiisa iyo suu wax u matalo John Q nin la yidhahdo Denzel Washington weeyaane marka roolka uu filimka ku ciyaaray wax weeyaan unbelievable role wax weeyaan role oo ilmihiisu xanuunsaday oo wadna loo raadinayo ninkiisa basically marka dhakhtar dhan buu gelaya dhakhtarka dhan buu xidhanaya lacagna ma haysto magaranaysaa so wuxuu ku khasbay doctorku inuu inankiisa daweeyo lacag la-aan wuxuu sameynaya dowladdii o dhan ba banaanka soo istaagaysa dhakhtarkii buu hoosta ka xidhanaya ninkii doctorkii waxaabad ku qabanaya so qisadu maraya from beginning to end inankiisii oo hortiisa ku dhimanayo dee rafaadayo intaanu dhiman horta rafaadayo marka dambena uu dhimanayo ayaa filimkaasaan jeclaan lahaa inaan ka qayb qaato adigna dabcan waa filim turkiya okay la wada jecel yahay drama okay waa filim turkiya la wada jecel yahay actually haye and sina real life u yara and filimka waxaa la kaara safta kaasaan odhan lahaa waan ka qayb qaadanay markaad aan ka weydiiyey iyada roolka inanta soo maha aktaladda actually yeah hadaba mid kale roolkeedu wuxuu ahaa roolka ugu adag oo yes because man roolkan arag filimkan filimkan. aan marayo iyo filimkaas somehow isku soo shabahan because filimkaasna waa xasiin midhow kan anigu waan ku jiraana waa murugo meedhan so markaa sibay iskugu soo shabahan waxaa ka maqan challenge-gii inan kala challenge garaynayo oo qof kale nin kale meesha soo gelayayo taasunbaa ka maqane laakiin dabcan filimkaas aan odhan lahaa maxamed imika hadda islaam murugo matal intee bay kugu qaadanaysa ama imika haddaan ku dhaho bal aad ooyinta intay caadi lahayn intee bay kugu qaadanaysaa wallaahi waxaan noqon aduu minutes cause waxaan doonaya inaan waxaan oo dhan magaraysa aan mute gareeyo dad kale oo dhan mute gareeyo aan moodkay galo mood ama wax soo xasuusto ama character galo marka aduu I don't think waqti inay igu qaadanayso minutes masi yar wada sheekeysanaadno adoo samaysid no oo ku sugaynaa waxaad doonaysaa inaan sameeyo okay I think so inaanan waqti xadirka samayn karin cause siduu sheegaya waxaan sameynaa banaanka u yara baxaa I was like marxaladii baan isku dayaa inaan galo that's the thing so I told you isaga uu bilaabi karaa and it's for no reason uu bilaabi karaa so an reason baa soo raadiyaa oo inaan banaanka u baxo I was like wajiga darbaxayr saas kaga soo idhaado imika maxamed wad weydiiba anagu like de one second qaado inaad ku weydid like hadhowto
for future meel la odhan karin imka haddii wax riyala kugu dhacaa waa fake waa fake meel la odhan waa karin run wallahi dhici karta waa tilayidhi beentaada horay runtaada dambe wax yeelaysaa soo markaan si ilaahay ma gaarsiiya heeran real life ka ooy filmanta iga filan waxaan kusoo dhawaaneynaa guntiga gabagabada barnaamijkeena si wacan baynu sheekaysanay inkastoo aan jeclaa barnaamijku intan ka dheeraaday dhawaan haddana waqtiga iyo ayaan inoo saamaxay guntiga gabagabada maxamedow maxaad dhalinyarada ama dadka ku taawanaya ama aad talo usoo jeedin lahayd adigoo murugisa weliba marka film ahaan soo film dadka filmaanta aan jecel kusoo biira ama dhalinyaradoo dhan general hadda ama soo jeceshay okay anu waxaan doonaya wax jecel waxaan garanayna ka hadlo maraysa so filmska hadday noqoto waxaan jeclaan waxaan doonaya wallahi qofkii doonaya inuu ka qayb galo horta ogow yani fieldkan field industriga ugu adag weeyaane wax walbaad la soo kulmaysaa dad badan oo ku idhahda ma awoodid ama ma kartid ama meelaha kale kusoo bandhig ama hadda jecesha waxaana meelaha kale u tag waad la kulmaysaa caqabado badan oo ah inaan dee ma jirto maanta qofka odhanaya hebelo kaalay ahoo oo gal roolkan gal iska duuba ma jirto maganaysa waxa ganid adigu samaysta waanaad from zero kasoo bilowda hadday noqoto inaad sheekadaadii qortid waxaagii adigu direct garaysid waxaagii ilaa intay dadku ku arkaya maganaysa so horta aniya jabin dadaalka kama soo hadho maganaysa everything yani aniga saan kuu sheegay imsa film baa iga xumaaday waan haddana dee sidi dee marmar baan macal dee aan gaadhay meel aan idhaahdo waxaan maxaa kugu kalfi ma iska daysidba haddana dee marka tiraahid dee intaasoo dhib oo soo jabtay maxaa kuu hadhay ilaa akhirka gaadh bal soo eeg yani natiijada soo eeg so walaa waxaan kula talin lahaa don't give up wax kastoo kugu dhaca don't give up waad gaari kartaa maalin waad gaari kartaa talabaad wax jirta dad badan oo kule halka kuma samayn kartid waxaan aaminsanay aniguna maanta haddaad wadankaaga wax ka samaysatid adduunka meel kasta wax ka samaysan kartaa cause halkan igu adagtay haddii la eego maanta halkan wadankeena igu adagtay so banaa haddaad maanta wadankaaga wax ka noqotid wax ka samaysatid adduunka you can do it anywhere so intaas waan kusoo gabagabeyn adiga sharasada arrimaha bulshada kugu celinaya inaad xasustid weeye jacaylka maxaa macnaha ka qaaday baynu taagnay like maxaad talaa soo jeedaysaa kula tahay dadku iminka yani jacayladu way wanaagsanaan karaan xidhiidhadu way wanaagsanaan karaan guurku way wanaagsanaan karaa like wax kastoo nolosha lamaanaha ku xidhan way ku waanaan karaa tala si adigu wallaahi waxaan anigu kula talin lahaa way guursatay ama saaxiibadii baa guursatay ha u guursanin iyo noloshaygu adag ama faamiliga carqabadigu ah ha u guursanin iyo sidoo kale inamada laftirkoodana yaanay u guursanin yani qofkan maxaan ka faa'iidaya ee muhiimadda waa isfahan isku day qofka nolosha la wadaagsan inaad fahanto isku day qofka nolosha la wadaagsan inuu noqdo saaxiibka walaalka aabbaha iyo xaaskaaga ama seygaaga haddii taasi meesha soo gasho difference badan ma imaanayo sidoo kale guurarkana arkayna degdegay dadka isku guursanaya isla markiiba haddana lagu kala noqonayo taana way yaraanaysaa ummaddan waxaan is odhan karaa farxad bay heli doonaa way aad baad labadina u mahadsantihiin daawadaalida ku aad baad mahadsantihiin waxaanan rajaynayaa filimka calaf shaashadaha dhawaan soo geli doona inaad daawan doontaan wax badan oo aanu iminka ka sheekeynayn inaad halka ku arki doontaan mar labaadna aan isku soo noqon doono aad barnaamijka dib u daawan doontaan si waxyaabihii aad xagga ku aragteen reactionkiisii aad halka ku aragtaan maxamed oo aan ka murugeysiinay weliba barnaamijkiisa aanu ka oynay iminka isagoo ooyii qoslaya aad baan isagana uga raaligelinaynaa intaan barnaamij lamid la kulmayno waa anigoo cabdikariim nekeya iyo dhammaan ardaa media isku duuban aad baad mahadsantihiin